علماء الدين كيودياش dhaqanka ee magaalada Caabudwaaq ayaa jaaliyada waqooyiga gobolka Galgaduud iyo muslimiinta caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha beedka Alle oo ah waxa ugu wanaagsan ee xoolahaaga lagu bixiyo. علماء الدين ayaa sheegay in qarash badan oo deyn ah lagu soo gaarsiiyay halka hadda ay marayso dhismaha masjidka loona baahan yahay in muslimiinta bishan qeyrkeeda ay xoolahooda ku darsadaan dhismaha masjid jaamaca Al-Rahma. Sheekh Daawud Xirsi Siyaad oo ka mid ah علماء الدين ka degmada Caabudwaaq ayaa sheegay waxaan dhex taaganahay masaajidkii jaamica ahaa ee weynaa ee Caabudwaaq. dadka waxaan la hadlayaa muxsiniinta ee meel kasta jooga ee mu'miniinta waxaan haysta masaajidkii baa nagu weynaaday waa nagu qarash batay shubki markaan sameynay wax aan ka yarayn ama ka la dhihi karo waa ka badan yihiin baa noo haray waxaa haray dariishadihii waxaa haray albaabadii waxaa haray salaaxii waxaa haray jaranjarooyinkii loo fuuli lahaa oo ilaa 3 jaranjaro ah waxaa haray waxa la yiraahdo aad iyo aad wax u fara badan. haddana waxa weeye waqtigii wax la taageeri jirana waa waqtigii la yiri hameen walba xadiisku noo sheegay waqtigii la yiri oo ramadaana oo 10 awaakhir aan joognaa waxaan codsanaynaa in la waqtigiina waa tahay meeshii lagu bixin jirana waa tahay intaasaan waxaan ka codsanaynaa sidaa darteed taageeraan codsanaynaa annaga halkaas ay nooga dharaar furatay. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ugu baaqay qurba joogta ka soo jeeda deegaanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa inay xoolahooda ku bixiyaan dhismaha beedka Alle. waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ama qulbooyinka jidha ama islaamka inay naga taageeraan masaajidkaas inay naga taageeraan. waad arkaysaan meesha aan taaganahay dadka muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay beedka Ilaahay wax ku soo darsadaan wax u hormarsadaan annagana ayna garab qabtaan. waxaanu caalamo islaamka codsanaynaa ama carab ha ahaadeen ama cajab ha ahaadeen baytullaahi baan dhisnay ayadoo anaguna xurmaynaysaan haddaan reer Caabudwaaq nahay aakhiradiinana aad wax la baxaysaan inaad naga caawisaan baytullaahigaas. waxaan leenahay dadka muslimiinta oo weliba qurbada jiro waalidkiin iyo naftiinaba masaajidkan wax ugu darsada weliba dad aan ballan lahayn baa jirtay oo inay waalidkood wax ugu soo daraan masaajidyada.